kulankani oo ahaa mid loogu tacsiinay Allahu naxariistay madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed isla markaana ku geeriyooday wadanka isu taga Imaaraadka Carabta 23kii bishan aynu ku jirno ayaa waxaa kulankani tacsida soo qaban qaabay ururka dhalinyarada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan SYISSD isla markaana waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaas oo dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankani guud ahaanba taasiti Iranyada ay hawada u mariyeen eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allahu naxariistay madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed isla markaana ahaa aasaasihii maamul goboleedka Puntland sidoo kalena soo noqday madaxweynihii maamul goboleedkaasi Allahu naxariisto ugu horeyntii madaxweynihii hore Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaalo istaga Imaaraadka uu leeyahay military inta nololkiisana waxa ka hadlay walaalkeena dib ugu noqonayo laakiin waxa uur ku taala aad igu ah in mas'uuliyiin Soomaaliyeed ama madaxa ay idaacadaha waaweyn intay ka hadlaan mas'uul Soomaaliyeed oo dhintay wax laga sheego taas waa ceeb waxaan dhammaan ururada aan ku mideysanahay maanta halkaan isugu imid inay tacsiyo ugu diraan halkaan madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ku geeriyooday halkaan la sheegay Ilaahay uu naxariisto Cabdullaahi Yuusuf kama tagin qoys kaliya kama tagin qabiil kama tagin jilib wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed gees Soomaaliyeed buu ahaa haliyay Soomaaliyeed buu ahaa madaxweyne Soomaaliyeed buu ahaa caalam muxuu ahaa Soomaaliland ka tagay khaasatan waxaan boorakan Afrika dhow ka tagay waxaan taasi ugu direynaa halkaan madaxweynihii hore ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto qaraabada ehelka iyo dadka uu ka geeriyoodayba geeridu waa wax masti ah qof kasta uu dhimanaya waana la dhimanaya geerida wayna ku kala horeynaa oo qabri wayna ku kala hormareynaa maahan dadkeenan adduunkooda nool malaayiinta meel kasta maraya qof kasta marba geeridu uu wada imaanaysa oo loo mutaqaan adduunkan alla qof kasta uu keensado inuu caabudo waqtigu doonana nafta uu ka qaadaya maanta waa mid magac ma laha marka ruux kasta Soomaaliyeed Allah u naxariisto uma artay inuu tacsiyad ugu diro oo maartay Ilaahay maartay u bariyo inuu adoonka Ilaahay u naxariisto innagana inooga daba naxariisto assalaamu calaykum warahmatullahi waxaan halkan tacsi uga dirayaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed Ilaahay naxariisti jannaha siiyo tacsi ummadda Soomaaliyeed oo dhan anagoo ah ummadda Soomaaliyeed dhammaan ehelkii uu ka tagay iyo dadkii uu ka baxayba naxariisti janna inuu Ilaahay siiyo qabrigiisana uu waasiciyo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto waxaan leeyahay oo kale inta uu ka tagay eheladiisa iyo qaraabadiisa samar iimaan iyo Allah ka siiyo mar labaad waxaan tacsi u dirayaa marwadii uu ka geeriyooday madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed habartay Xaawo Cabdi dhammaan hooyaday jumad bulad Nuurseed oo degan Mareykanka kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo fara badan oo tacsiin loogu diray Allahu naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyadoo kulankan ay soo qaban qaabeen ururka SYSD isla markaana ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Cabdirasaaq Miro Dhoore Hon Cable TV Nairobi